kusoo dhawaada warka Kalastama TV qodobada daawan doontaan hadii Ilaahay raali ka noqdona waxa kamida dawladda Ukraine waxay heshay ayaa la leeyahay hub iyo qalab casri ah oo Mareykanka uu ugu deeqay kol hore dagaalka Ruushka ay kula jiraan Ukraine ayaa markan waji kale inuu yeelan karo laga cabsi qaba qodobada kale waxa daawan doontaan 20 senator oo ka tirsan dalka Mareykanka waxay diyaariyeen mooshin madaxweyne Joe Biden lagu cadaadinayo ka qaybgalka باريس لغو سميي ديلكا gabadhii saxafiyada ahayd ee Sharayn Abu Aqil ee Falastiin lagu dilay qodobada waxa ku jiri doona 8 qof oo ku dhintay doon ay la socdeen dalka Nigeria iyo booliska oramada oo ku guul dareystay in xubno ka tirsanaa OLF maleeshiyadka la yiraahdo hogaankooda in ay maxkamad hor keenaan qodobadaasi waliba kuwa kale ayaan fiirin doonaa u diyaar garooba iyagoo faahfaahsan ugu horeyn hadad nagu cusub tahay subscribe dheh oo hel dhacdooyinka dalka qaaradda iyo deegaankaagaba muuqaalka Lexar oo si sheergaray hadii aad awoodo waad mahadsan tahay aan ku bilowno xukuumadda Kiev waxay sheegaysaa in ay hadda helayso qalabkii ay muddo ku taamaysay inay helaan taasi oo dhinacyo kala duwan isugu jira ee hubka iyo waliba qaabka la isaga difaaco sawaariiqda ay ciidanka Ruushka u adeegsanayaan dagaalka wasiirka difaaca ee Ukraine ayaa sheegay in gantaalada ridada dhaadheer ee Mareykanka qalabka la isaga difaaco ay u soo dhiibeen isla markaana hadda gacantooda ay ku jiraan iyadoo ciidamada Ruushka ay sii wadaan in ay ku siisiqaan weerarka ay ku yihiin gobolka Donbass ee bariga Ukraine dhaca dawladda Ukraine waxay sheegaysaa in la wareegtay saadka Mareykanka ee high mobility artillery waxa loo yaqaano ee HIMARS loo soo gaabiyo oo ah nidaamka hubka ridada dhaadheer ee awoodda badan kaas oo Kiev ay rajeynayso inay gacan ka siiyo sidii duulaanka Ruushka ay meel uga soo jeesan lahaayeen ku dhawaaqistan barnaamijka iyo waliba qalabka Mareykanka ugu deeqay Ukraine ayaa timid iyadoo ciidamada Moscow ay ku siisiqayaan bariga Ukraine gobolka Donbass iyagoo dhanka kale isku dayay inay qabsadaan xarunta warshadaha ee loo yaqaano Donbass halka ay Ukraine ay cabsi ka qabteen qaar ka mid ah ciidamadeeda lagu hareereeyay meelo kala duwan oo dhinaca Ruushka ay hadda inay iska caabin xoog leh kala kulmaan ay doonayaan Ukraine waxay sheegtay in ay u baahan tahay nidaamyada HIMARS ka loo yaqaan qalabkan artillery iyo sawaariiqda kooda ka difaaca marka lagu soo rido ay sheegtay in wax badan faa'iido ay u aragto si wanaagsan ay ula jaan qaadaan noocyada gantaalada Ruushka oo ay sheegtay in si weyn loogu isticmaalo in lagu garaaco meelo kala duwan sida gobolka Donbass oo hadda dagaalka xoogiisa uu ka socdo Washington ayaa sheegaysa in ay Ukraine ka caawinayso sidii ay Kiev dhamaanad ahaan uga qaadi lahayd hubkaas ridada dheer aan loo isticmaali doonin in lagu weeraro dhulka Ruushka dagaalka Ukraine iyo Ruushka ayaa galay bishii afraad isla markaana waxay u muuqataa mid xaaladdu ay la leeyahay Ruushka way u sahlanaan laadahay in uu wada qabsado Ukraine qodobada kale Kalastama TV ayaan ku sii daadagaynay bal markana 20 senator in ka badan oo dalka Mareykanka ah ayaa waxa ay mooshin ka diyaarinayaan madaxweynaha dalkaasi Joe Biden si toos ah ayaa mooshinkan waxa loogu baaqayaa madaxweyne Biden in uu u farageliyo ka qaybgalka baaritaanka lagu sameeyo dilka gabadhii Sharayn Abu Aqil la oran jiray ee iyadu lagu dilay dalka Falastiin gabadhan waxay ka tirsaneyd telefishinka Al Jazeera oo ay u soo waramaysay muddo 25 sano ah bariga magaalada ku taala ee Jenin ayaa dad qaxooti ay degan yihiin iyadoo warbixin ka tabinaysay ciidamada Israa'iil toogasho bareera ay u geysteen baa la yiri senatarada Mareykanka waxa ay ku cadaadinayaan madaxweynaha wadankaasi Joe Biden in uu ka qayb galo baaritaanka la sameeyo ee dilkaas si loo ilaaliyo xorriyadda saxaafadda iyo xorriyatul qowlka guud ee caalamka baaritaan hufan oo hoos yimaada Mareykanka waa in la sameeyaa si runta loo helo oo loo soo helo isla xisaabtan dhab ahna lagu sameeyo kuwii ka dambeeyay dilka muwaadinkaas iyo wariyaha Mareykanka ah senatarada ayaa sidaas qoray dadka qaar ayaa aad uga carooday dilkan loo geystay gabadhan 12 bishii May ee sanadkan waxay haysatay dhalashada dalka Mareykanka waana mid hadda keentay in senatarada ay u qeyladhaamiyaan oo ay ku baaqaan in baaritaan hufan lagu sameeyo asalkeedu waxay ka soo jeedaa Falastiin laakiin Palestinian American ayaa ay ahayd gabadhaas saxafiyada ahayd marka waxa la ogaan doonaa baaritaankaas madaxweyne Joe Biden loogu baaqay iyo sida uu kaga qayb galo baaritaanka lagu sameeyo dilka loo geystay Sharayn Abu Aqil saxafiyadii Al Jazeera u shaqeyn jirtay ee lagu dilay
magaalada janiin ee dalka falastiin bishii hore. malmarkan shildon ayaa waxaa la soo sheegaya inuu ka dhacay dalka nigeria, islamarkaana 8 qofood ayaa la soo tabiyey in ay ku geeriyoodeen. warbixin lagu daabacay warsidaha pmnewsnigeria.com ayaa waxaa lagu sheegay in agagaarka bayelsa gobolka la yidhaahdo xilli ay doonta maraysay ay kiiday ama ay quustay. 12 qofood ayaa la socday oo rakaabka iyo shaqaalaha isugu jiray. 4 qofood ayaa ka badbaaday shilkaasi. waxaa wararku ay sheegayaan in 6 qofood ay ka badbaadeen oo haweeney ka mid tahay dadka laga badbaadiyey, inkastoo 8 qofood ay ku geeriyoodeen sida la sheegay. markii dambe xogaha ugu dambeeyay la ogaaday waa dhacdadii labaad oo muddo isbuuca laga soo tabiyey dalka Nigeria. sidaanoo kale ayaa hore waxaa sabtidii isbuucan bilowgiisii doon dad ay la socdeen ay ugu geeriyoodeen ilaa 3 qofood isla dalka Nigeria. ugu dambeynna haddii aan eegno dalka Ethiopia, wararka ka imaanay waxay sheegayaan in booliska Oromada ay ku guuldareysteen in maxkamad hor keenaan 4 ka mid ah madaxda sarsare ee kooxda jabhadda xoreynta Oromada ee OLF loo yaqaano. booliska Oromada waxa ay sheegeen iyagoo ku sugan deegaanka Burayo la yiraahdo oo ka tirsan gobolka Oromada ee aaga gaarka ah ee ku xiran Finfinne ayaa ku guuldareystay inay keenaan 4 sargaal oo sarsare oo ka tirsan jabhadda OLF maxkamad degmo si ay u dhageysiga dib u eegista codsiga ee iyagu eedda loo haysto. 4taasi waxay kala yihiin Mikael Bekele oo ka soo jeeda Booranta, Lami Begna, Dawit Abeta iyo weliba Gada Gabeza oo iyaguna ka soo jeeda isla qoomiyadda Oromada ayaa gacanta booliska Oromada ku jira. sidaas daraadeed waxaa suuragali weyday baa la yiri inay ka soo qayb galaan dhageysiga dacwadda, sida ay sheegeen kooxda qareenada ah oo la hadashay wargeyska Addis Standard. sida laga soo xigtay qareenada kooxdan u doodaysa codsiga waxaa la sameeyey 13 bishan June. intaa kadib maxkamadda degmadu waxay ku amartay bilayska in la hor keeno eedeysanayaasha Arbacadii 22 bisha ku beegneed toddobaadkan, laakiin way suurtagali weysay. maxkamadda ayaa mar kale amar ku bixisay in ciidamada booliiska magaalada la yiraahdo Burayo oo ka tirsan gobolka Oromada ay soo bandhigaan eedeysanayaasha kalfadhiga xiga. maxkamaddu waxa ay kalo ay xukuntay xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda sare ee Oromada iyo komishinka booliiska Oromada inay cadeeyaan sababta ay shakhsiyaadkaasi uga shakisan yihiin eedeysanayaasha haddii ay jiraan dhageysiga dib loo dhigay ilaa 4 bisha soo socotay ee July. horey dacwad oogayaasha waxay sheegeen in kiiska uu u xiray Mikael Bekele oo Booranta ka soo jeeda, iyaga oo ku andacoonaya in aysan jirin wax dambi ah oo lagu soo oogay. guud ahaan daawadayaal intaasaynu ku soo gabagabaynaynaa wararka Kalsoome TV. intaan wararkan oo kale dib isku arki doonno, nabadgelyo.